Assalaamu calaykum. Dunida aynu ku noolnahay waxay ka kooban tahay 9 meereey. Inagu ahaan waxaynu kaga noolnahay meereeyaha saddexaad kaasoo ah dhulka. Dhulku waxa uu leeyahay 7 qaaradood. Qaarad walbana waxaa ku yaal dalal aad u fara badan. Haddaba muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa 6 dal aad u yar balse hodanti ah kana hanti iyo maamuus badan dalal badan oo dunida ku yaal. Inta aanan kulmin muuqaalka like inoo saar, subscribe inoo dhiirigeli, qoraalada commentiga inoogu reeb, lana wadaag muuqaalkan asxaabtaada. San Marino waa wadan dadka inta badan ku tiriyaan inuu ka tirsan yahay dowladda Italiya, balse sanadii 1800 ayay xorriyadooda qaateen. Waana dal ka madax bannaan wadankaasi, buuraleyna ah, inta badanna loo soo dalxiis tago. Dalkani waxa uu ku fadhiyaa dhul badkiisu gaarayo 61.2 kiiloomitir isku weer. Dakhli sanadeedka dalkani waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 1.41 bilyan doolarka Mareykanka. Dakhligana waxa uu ka soo galaa dalkani dalxiiska, wax soo saarka warshadaha iyo lacag dhigashada bangiyada. Vatican City, dal ku hareeraysan magaalada Rome ee dalka Italy, waa dalka ugu yar dunida oo idil, waxaana ku cadeynaysa midatan. Dalkani waxa uu bed ahaan ku fadhiyaa dhul baaxadiisu gaarayso 0.49 kiiloomitir isku weer. Bulshooyinka degan waxaa lagu qiyaasaa inay leeyihiin tiro ahaan 801 ruux. Dakhliga dalkani sanadlaha uu soo xareeyo waa 21,198 doolarka Mareykanka. Waa dal kaalinta 18aad kaga jira dalalka ugu hodansan dunida. Bahamas waa dal ka mid ahaan jiray dalalka hoostaga boqortooyada Ingiriiska ilaa sanadii 1973 oo ay dowladaha hanti wadaaga u garteen inuu yahay dal madax bannaan. Dalkani waxa uu ku fadhiyaa dhul badkiisu la eg yahay 13,878 kiiloomitir isku weer. Dalkani dakhliga sanadlaha uu soo xareeyo waa 27,000 doolarka Mareykanka. Singapore, dal ku yaala qaaradda Aasiya, qowmiyado kala duwanna ku nool yihiin. Nolosha halkani waa mid aad u sareysa. Dal canshuuraadkiisu yar yahay, lehna ganacsi xor ah. Waana sababta dekedda dalkani ka dhigtay midda ugu mashquulka badan dunida. Dalka Singapore waxa uu ku fadhiyaa dhul badkiisu gaarayo 724 kiiloomitir isku weer. Dakhliga sanadkii uu soo xareeyana waa 379,071 bilyan doolarka Mareykanka. Luxembourg, wadan yar ku wareegsan dalka Belgium, intiisa badanna baadiye ah. Sanadii 2018 wadankii ugu dakhliga soo saarka badnaa dunida. Dalkani wuxuu ku fadhiyaa dhul badkiisu gaarayo 51.46 kiiloomitir isku weer. Dakhliga sanadii uu soo xareeyana waa 69.5 bilyan doolarka Mareykanka. Andorra, wadan yar ku yaal inta u dhaxaysa dalalka Faransa iyo Spain,
dal buuraley ah, neecaw macaano leh, dalxiisna loo yimaado. Dalkani badka uu ku fadhiyo dhul ahaan waa 31.61 kiiloomitir iskuweer. Dakhliga sanadii 2020 dalkani wuxuu marayay $42,500, wuxuuna kaalinta 15aad kaga jiraa dalalka dunida ugu hodansan. Halkan ayaan kusoo afmeeraynaa muuqaalkeena maanta. Intaan muuqaalkan muuqaal xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa. Assalaamu calaykum.